sidaabuu ilaahay u nooleeyaa dhimashada maxay tahay qisada shimbiruhu kuwaasoo la dilay oo la googooyey haddana dib loo soo noolaysiiyey maxay tahay qisadu bal aan idinka warramo qisadani waxaa lagu xusay qur'aanka kariimka iyo nebi ibraahim mar uu ka codsaday ilaahay subxaanahu watacaala si uu u tuso siduu ilaahay wax u nooleeyo waxaana u yimi malakul jibriil calayhi salaam waxaanuu su'aalay miyaadan rumaysnayn wuxuu ku yidhi waan rumaysnahay laakiin si uu qalbigu iigu xasilo ilaahay ayaa amray subxaanahu watacaala inuu soo qaato 4 shimbirood waa diig daawuska tukaha iyo xamam kadibna jarjar oo isku dhex walaaq kadibna qayb googoo qayb walbana buur ku tuur kadibna ilaahay baa wuxuu amray in uu u yeeray wuxuu arkay baalkiisii tegaya iyo dhiiggiisii tegaya hilibkiisii tegaya shimbir walbana jidhkiisii ayaa isku soo wada noqday oo shimbir walbana sidiisii ayuu noqday kadibna iyagoo socda ayay u yimaadeen sidaasaanu ilaahay u tusay nebigiisa siduu dhimashada u nooleeyo wax kasta aanu awoodaa ilaahay